nabadda lahaantiinba meel kastoo aad joogtaan waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa hees cusub oo ay soo saareen kooxda waayaha cusub taasi oo loogu magacdaray dhoohane hase ahaatee intaynaan u gudagelin haddii aad janalkan ku cusub tahay fadlan sabscribe saar si aad mar walba noola socotid fanaaniinta waayaha cusub ayaa soo saaray hees kaloo cusub oo lagu magacaabo dhoohane waana heestii labaad ay soo saaraan in muddo ah oo ay ka maqnaayeen saaxadda fanka Soomaalida. Kooxda waayaha cusub heestii ay ugu magacdareen nabar iyo naxdin ayaa la kulantay dislike badan ama falcelin ah ma jecli. Heestan cusub ee dhoohane ayaa iyana u muuqata mid qaadaysa dhabaha amaba wadada heestii nabar iyo naxdin maadaama like-ta ay heshay ilaa hadda iyo dislike-ta ay kala badan yihiin oo waxaa zaa'id u badan dadka dhahaya kama helin ama ma jeclin heeskan. fanaanka Shiine Cabdulaahi Cali Akhyaar oo ah gudoomiyaha kooxda waayaha cusub ayaa maruu ka hadlayay heeskii nabar iyo naxdin ay ugu magacdareen falcelintii ay la kulantay ayaa wuxuu sheegay inay qariyeen qaybta laga arko like-ga iyo dislike-ga ee muuqaalkaasi. Sababta aan u xirnay like-ga iyo dislike-ga waxay ahayd inaan sida ay dadka uga marin habaabinayaan inay guul ka dhiganayaan oo ay muujinayaan in waayaha cusub ay shacabka Soomaaliyeed dislike gareeyeen ayuu yiri Shiine Akhyaar oo ah gudoomiyaha kooxda waayaha cusub. Wuxuu dowladda Soomaaliya ku eedeeyay lacag badan ay ku bixisay sidii dislike badan loo saari lahaa muuqaalka heesta ay soo galiyeen waayaha cusub walow aynaan caddayn wahayn arrinkaasi. fan ahaan ama arzaaq ka dhigana waa riyaalta ma kala leeyahay fankan waan history niga hadaa baartid dib waa arrin ka dhaa fankan waxaan u soo galnay dalkanaga iyo dadkanaga inaanu ku garab istaagno ugu heelino cadowga nooga dhacno uguna tilmaano kuna gubaabino kuna dhirigelino waa ujeedada aan u asaasnay 3 sano iyo bar maalintii madaxweynahan la doortay 3 maanta madaxweyne ma ahayn markii aanu soo publish gareynay ninkii ma aha oo aan uga jeednay isbedelkii aanu rabnay ma aragno sababta anigu waxaan maanaan sugan anaga goodax barre oo ilaa Cabdullaahi Yuusuf taagnaayo kuwa la mid ah iyo inaanu aragno wili inaanu aragno isbedelka aan sugayna maaha nidaamkii Xasan Sheekh nidaamka hadii la bedelay waa inaanu helnaa system iyo nidaam cusub oo fresh ah oo aan leenahay sida isbedel laakiin wasiiradii Xasan Sheekhna waa ama kuwii ka horeeyay Cabdullaahi Yuusufna waa xun yihiin wasiiradiisina waa fiican yihiin weliba aan ognahay wasiirada qaarkood inay yihiin kuwii public yiri waa fashilnay waan iscasilnay ayagoo wasiirro ah baan goobsho ognahay heestan waxaa ku soo aadiyay xilligan waa xilli xasaasi ah sababta 3 sano ka hor hadaan soo saari lahayn waxaa noqon lahayn dad qaranka la dagaalamaya fududaaday waqti aan siin laakiin waxaa ku qasbanaanay inaan maadaama anigu shaqadanada ay tahay inaanu si ummadanada aanu garab istaagno taas markii hadda la gaaray waxaan u aragnay inay tahay xilli isbedel aanu barmood garan karno. Dadka qoraalada reebaya amaba qaybta commentiga ka dhiibanaya heeska cusub ee dhoohane badankooda waxay dhaliilayaan heestan cusub iyagoona taageero u muujinaya madaxda dowladda Soomaaliya walow kuwa kale ay garab istaagsan yihiin kooxda waayaha cusub. Horta dislike maxay qabataa maxay sataa waxaynu soo qaadan doonaa qormeer oo Cabdulla Muumin ka qoray dislike waxa ay qabato iyo faa'iidada ay leedahay amaba khasaaraha. Dislike waa eray Ingiriisi oo macnihiisu yahay ma jecli amaba waa necbahay oo loogu talagalay in isticmaalaha barta bulsho sida YouTube uu ku muujiyo dareenkiisa amaba dareenkeeda. Maxay dislike tartaa? Barta YouTube waxay adeegsataa calaamado like waan jeclahay iyo dislike waan necbahay iyo share la wadaag kuwa kale si loo ogaado hadba isticmaalaha barta waxa uu xiiseynaya amaba ay xiiseynayso. Taasi waxay ka caawinaysaa barta YouTube inay ogaato hadba waxa uu macaamilkeeda doonayo amaba ay doonayso si mustaqbalka dambe loogu soo tala jeediyo recommend hadba muuqaalada la midka ah kuwa uu like saaray. Haddaba haddii uu muuqaalka la kulmo dislike badan ma waxay saameyn ku yeelan doontaa xayeysiinta la siiyo. YouTube waxay ka mid tahay baraha bulshada ee bixiya adeegga xayeysiinta AdSense kaas oo ku shaqeeya tiknoolajiyadda casriga. Xayeysiinta YouTube waxaa ku taxan oo loogu adeegaa malaayiin macaamiil ah oo wadan ahaan, diin ahaan, dad ahaan iyo weliba jinsi ahaan kala duwan. Dadkaasi midba wax ayuu xiiseeyaa. Sidaa darteed YouTube si macaamiisheeda adeegga xayeysiinta ka qaata ay u siiso khibrad fiican iyo adeeg waqtiyeysan waxay aruurisaa hadba dabeecadda iyo dhaqdhaqaaqa bulshada soo booqata barteeda iyadoo la adeegsanaya adeegga cookies sida inta saac ay ku jireen daawadeen muuqaal amaba gujiyeen bogog iyo xayeysiimaha ku jira boggeeda.
si ay u jaangoyso baahida macaamiisha. Kuwa YouTube ku jirana loo siiyo wixii ay dalbadeen, waxay YouTube isticmaashaa xogta ay ka heshay cookies. Sidaa daraaddeed waxay arkaysaa adigoo muuqaal daawanaya in haddana laguu soo bandhigaya xayeysiis waafaqsan muuqaalka aad jeclaatay ama marar badan aad daawatay. Haddaba dislike wax dhibaato ma keentaa? Maya, ee waa cagsigeeda oo waxayba caawinaysaa barta amaba channel kala siiya dislike. Barta hesha dislike badan waxay helaysaa in aad loo booqdo amaba la raadiyo, taasoo keenaysa in mashiinada waxgooba ee Google-ka inay helaan malaayiin codsi oo raadinaysa heesta oo muuqaalkaasi lagu qufay amaba aadka loola dhacay dislike-ga faraha badan. Marka sidaas loo fiiriyo tusaalaha, heesta kooxda waayaha cusub ee Doohane way u fiican tahay oo waxay siinaysaa caannimo zaa'ida. YouTube muuqaalka hela dislike badan ma saarayaan? Maya, shirkadda YouTube ma saarto muuqaal dislike dartiis haddii aysan ahayn muuqaal ka soo horjeeda hanaanka bulsho ee u degsan YouTube amaba Google oo waafaqsan hanaanka kala ra'yi duwanaanshiyaha dadyowga iyo xorriyadda wax cabiridda. Taariikhda muuqaalada laga saaro YouTube waa kuwo muujinaya rabshadaha sida dil, qoorgoyn amaba anshaxumo sida galmo ama kuwo wax u dhimaya carruurta. Dislike-ta miyaa la qarin karaa? Haa, qof kasta oo maamulo bar YouTube wuxuu awood u leeyahay inuu qariyo waxyaabaha ka dhex dhaca bartiisa ama barteeda ee ka imaanaya dadweynaha community, sida faallooyinka comment iyo falcelinada reactions oo ay like iyo dislike ka mid yihiin. Haddaba wayna arki doonaa meesha ay ku biyo shubato heesta cusub ee kooxda waayaha cusub ay soo qaadeen ee Doohane. Miyay la kulmi doontaa dislike ka badan tii ay la kulantay heestii Nabari Naxdin ay dhawaan soo qaadeen? waad ku mahadsantahay la socodka channelkan, mar walba waan kaaga mahadcelinaynaa. Haddaba haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si aad mar walba noola socotid. Mahadsanid. laakiin way nagu adkeed dad aan xisbi lahayn oo dowlad ah inaanu si toos ah aanu dhaliishooda sugaan ugu isticmaalno ama heese ugu isticmaalno. hadda laakiin waxaanu aragnay fursad ah in ay samaysteen xisbi Nabari Naxdin ah oo ay rabaan inay mar labaad doorasho ku galaan si ummadda ay u maran habaabiyaan ama hagardaamadan ay ku sii hayaan. waana midda aanu ka dhiidhinayno. 4 sano ay xilka hayeen kama xumin, laakiin 4 sano oo kale inay ummaddan ka lumiyaan xaq uma laha. waa anaasiir dalkan waa in maxkamad la keenaa. boqolaal dembi bay galeen, boqolaal cuqubay galeen, boqolaal waxay galeen nabiibnimay sameeyeen oo wax aan jirin bay ummadda ka gadeen. maalinba waxaa ognahay wax aan jirin inay ummadda ka dhaadhicinayaan. runtii annagu waxaan u ololayna waxaa waaye taymkoodii waa dhammaaday. allah u calfo intii ummaddan waxaana ummadda Soomaali inaysa iloobin waxay khaldeen iyo waxay saxaynba. waxay saxayn waa waajibkooda laa shukra cala waajib. waxay khaldeen laakiin waa in aan laga harin oo taariikhdu ay saxdaa. cadaalad waa in loo helaa qalbi dhagax. cadaalad waa in loo helaa tekadahan la boobayo. cadaalad waa in loo helaa arrimaha Kenya maxkamadeeda la meermeerinayo. cadaalad waa in loo helaa ummaddan la marin habaabinayo. maalin walba ummadda Soomaali wax aan jirin lagu mashquulin loo isticmaalayo. ani waxaan leeyahay dalkan wuxuu u baahan yahay madax shabaab la dagaasha, madax qabaa'ilada walaalo ka dhigta, madax dadkii wax tabanaya ee wax kala dhexeeyaan ee Soomaali ah gurigooda ugu tagta, soo sasabta, soo barida. laakiin ma rabno dad raba aniga keliya. aniga nebigu wuxuu yidhi man madaxa nafsahu falaysa mina. war qof ismaadinaya ama anaaniya aniga saa dhahaya dalkaanu ma u baahna. dalkaan wuxuu u baahan yahay nabadoonno u baahan yahay. dalkaan wuxuu u baahan yahay dad masaalixda ummadda isku raadin kara. annaga waxaa ka digayna waxaa waaye war qarankan god buu ka dhacaya. qarankan wuxuu tegi doonaa in dowladdan ay social media kusoo aruurto oo been iyo sawir inay kusoo aruurtay wax lamid ah. ani waxaan leeyahay dalkan badbaadu nooga baahan yahay. ummadda Soomaaliya inta u bidhaaminayna waa intaasa. ma lihin ummadda dagaalama qoryo qaata ma lihin, laakiin xuquuqdiina dastuuriga barxadaha imaada, hadla, xuquuqdiina muujiya. doorasho hadday timaado ha u codaynina xisbigan nudaygiina ama halbowlihiina shaqaya xoolihiina social mediaha ama dad taksiyadoodii iyo balaakaabyadoodii iyo talaagyadoodii ka soo degay ay xamar ku dhuuqayaan. waxaan leeyahay ka yeelanina dalkan adinka xaq u leh, adinka laydinka raba canshuurta bixiya. waxaan leeyahay isbeddelku adinku idinka suuroobaa. maanta isbeddel gacmihiina codkiina buu ku xiran yahay. isbeddel u codeeya oo qof soo fashilmay iyo kuwan faashilka ah midna ha u codaynina.
waayahay shiina waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dad baa waxay aaminsan yihiin in mucaaradkii dowladdu ay gadaal idinka soo riixayaan oo lacaga idinku bixinayaan si markaasi fankii aad ugu adeegsataan dhinacii dacayadda dowladda ma jirta arrintaas xaasha lilah ma jiro shaksi ahaan marka aanu ka hadlo xisbi aan ka mid ahay ama aan la dhacsanay ma jiro anigu waxaan aaminsanahay mar walbana ummadda waan la wadaagaa isbeddel dhab ah isbeddel dhab ah ma qaba waddankan inuu mar labaad ama xil uu ka qabto qof soo fashilmay ama qof la soo tijaabiyey ilaahow hadduu rabo barwaaqo dalkan soo geliya anigu waxaan aaminsanahay afkaar idea ah dalkan inuu u baahan yahay isbeddel meesha hadda uu taagan yahay dad 2,000 oo jeer ka fiican samayn kara inuu aado realitiga waafajiyaan baa aanu u ololeynaya